inaynu noqono aan hortagi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si dalka loo celiyo hanaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay ama aaminsanayd walina ay xal u aragtaa in wadada kaliya ee furan ay tahay midda wada hadalka isqancinta isu tanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wada hadalka iyadoo la dhameystirayo heshiiskii 17 Sebtembar iyo talabixintii guddiga farsamo ee Beedhabo ee Febraayo 16 2021 waxaan dhammaan saxiixayaasha heshiiskii 17 Sebtembar aan ugu baaqaya inay si degdeg ah la isugu yimaado si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskaas kadibna loo wasiixo iyadoo aanan wax shuruud ah aan lagu xirin. ugu dambeyntii waxaan farayaa hay'adaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida caasimadda iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed lagana fogaado wax kasta oo dhalin kara khalkhal amni. shacabka Soomaaliyeedna ay arintaasi ku garab siiyaan ciidankooda qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan badbaadadooda. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.